maanta waxaa jooga Greega oo lagu kala yaacay dad fara badan ma joogaan asxaab yar joogto waxa uu maaday in aan maanta mataqaanaa soo xasuusto 2015 markii aan imaado wadankan meeshii ugu horeysay ee lugta aan soo saaro iyo qaabkii aan ugu noolaa iyo meelihii aan ka degnaa maanta waxaan rabaa barnaamijka saaraa inaan mataqaanaa meeshaan idinku falanqeeyo meeshaan aan joogno waxa waaye meeshii oo dalka jabnaa oo meeshaan qooleyda subaxdii kale waxa loogu daadi jiray macala bariis iyo xaas loogu daadi jiray 2016 Soomaali istaagteen waxay ahayd meeshaan ay ahaan jirtay meeshaan ninkii Iiraanka ahaa oo mataqaanaa kafeteriga ahaa wax laga cabi jiray waa kana musaja luuqa noogu yaal jiray isoo raac markii واتهاي سوجتين اسكوسكنا جوجنا dhinaca marka fiiriso waxa loo aadi jiray xawaalad taaj iyo dadkii yaqaani ay yaqaan waqtigaas jirtay inta lacagta la gabin koor intana masaajidka wuxuu ahaan jiray goda loo gali jiray inkastoo ahaa waqtigaas xilli oo qabow ahaa waa kana masaajidka daaqaldaneen ku aadim masaajidka waa kana intuu ku yaala Allah ku qoran soo jeedin masaajidka hoos loo gali jiray hadii inuu furan yahay in ka tamshiye kari laakiin sida meesha ugu jeedo waxa waaye waqtigii xilliga oo maskiga uu ku aadan yahay okay umaynaya oo guri lahaa gurigiisan dhulka loo gali jiray asxaab far badan oo ani aqaanana maxaa la sheeg ee way degnaa jireen waxa kamid ah saaxiibkii Maxamed Cadaawe ayaal Madiina Exis la ahayn waxa kale kamid ahaa Sheelara iyo Moolid iyo dad far badan soo maray gurigaas ani markaa baranay gurigaas oo dhulkoosiis ku yaalo asaan ku bartay inkastoo mataqaan Shariif oo calraagana maxaa la sheeg walaakiis aan reerindiis la ahaan jirnay okay meeshan waxa waaye marka iimaanaysid waa inaad iska fiirisaa baabuurta wax celiye ma lahan waa iska socdaan sidii Soomaaliya oo kale ta waan fahmaysin wax celiye ma lahan waa iska socdaan hindiina joogtiin kala mataqaanaa ma kala dareemaysid okay guriga daaqaldaneen inuu kaas ahaa u maleynaya daaqadiis irida laga arki jiray kulay isaxa hadii aqaldanahay iyo hadii kale to كانوا هيا جعله كان سوق انتو اهان جيرين معناها ايشك ان ادي غوري هوسا لو غلاي غوري ما اهان غوري او عادي ما اهان جيرين هدا او بوتو كانوا اهان لا كانوا اها مالنا ان ادي ميلها انا ما تقانا كلي غوري Soomaalida meelana ku yaale anyways غوري ee degnaayeen Maxamed Cadaawe نحبكي موليد شالرو يا أصحاب ربنا أنت دقنا جرين وحكلوا جري جوري كرت صحاب بدن دقناين وحكمت أها صاحبكي محمد ديق جوري هدانا معنا هدا أنت وحيان ميل أو على جروب يحبك بيحي جري وميل هذا كما تقانا يزدرو أو دراجة يحس درا أنت ما تقانا جيفن جرين مثلا باكين كمشير ولا سكري يا باورك أوكي sidoo kale meeshan waxa waa dadka daroogistayaasha jiifan jireen dawjidin dadkan meesha jooga dhan ma taqaana waxa waaye dad oo cabtooy nolosha ka dhacsan waaye dadka waxa waaye oo alaabtan oo cadaanka iyo waxyaabahaas kala gudbiyo oo siduro marka waxa waaye in markaa dadku way la dagaalaan ama wixii haasan ay ka qaataan marka Greega dadka oo ajnabiga iska ilaalinaya Soomaalida iska ilaalin waxa u socdaa gurigii aan degnaan jiray meesha ujeedina xaliim shoor ma laha qofkii yaqaan way yaqaan meeshaas qof loo sheegaa ma jiro dadkii oo ma taqana waqtigaas ama had soo maray ama xataa soo maray intii ma taqana oo Greega oo macna la soo wada maray muuqaalkan taasoo ma taqana isha ku saabsan dadka inay ma taqana ku raaxaysan ama ay daawadaan maadaama ay tahay waqti oo ma taqana meeshan Paris la lahaa oo ma taqana meel dadka shishad iyo xas cabaa fadhistaan kale aan inay iga dambaysa oo maleynaya marka ilma Soomaaliya u jeeda gaal dambe okay waa kana marka wadadii ama taqana guriga adeena jirna waa kaasa meeshan waxa waaye supermarketkii oo Jaineska waa kana oo dad far badan kaba ay ka gadan jireen iyo waxyaabaha ay ka gadan jireen waa kana meeshii oo ma taqaana oo dharka aan ku dhaqan jirno waa kana oo dadka aan ugu aadiyo mar labaad meeshana waxa la geesan jiray dharka marka jafta la aado ama meel la aado ama hatta dharka caadiga ka soo qaabaan meeshana la geesan jiray guri kale taakasa guriga ay raadina waa kaasa xaq ku yaala oo guriga hoos loo gali jiray Maxamed iyo guriga shadgnaa jireen supermarketka Jaineska waa kana oo dharkii iyo waxba gadan jirnay okay nasoo goosiye laamiyaasha marka goonays meeshan wax celinay ma lahan mootooyin saas iska socdaan okay waa kana aqarnuun 61 waaye Soomaali saagin waxaan jirtay aqarnuun 40 aan jirtay marka gurigeena inta loo aadi jiray
كله نينكس كلها مجلس مشي جاي نوانين دون تو هنجري كل عضو داودنا كم عندي هوس ويوسف قاري كنا مجلس هبل وهذه كانت مقاعد ولا فرنت هذا كنا إن الحرام ملينا هاي قرين أنت لو سؤال جري ما كا أدرس كي سواء حسوستا وحالي جري تقنا الكفيادو فود تري ما كما كان هذا سقط نقول واقعي لكن قري وإذن جينا قري هدينا جرني gurigaas ama waxa degnaa adiga 4 bood amal 2 bood ugu dambeysay soo bixin waxa degnaa jiray Mikael Avoda xaafad la dhaw nacanka lagu taalo ayadana waa tageena meeshan waxa waaye sidii Soomaaliya ka tahay xamaaliga waxa waa alaabta sad dejinaayo okay marka waxa jiray suuq sabdi jiray marka guriga waa kana degnaa jirnay adreeskiisana u jeedaa ma taqaana kor ku qoran yahay ومقالة وكان متقنا الكفيادو معنا شيء كروك قرين هاي دوا قاسة دجاجين بريجاس متقنا قيبتان أو متقنا قال دمبه عدينا جرنا ما كأنه صور أوسان وقال وجرا أو بريجاس كور دمبه لا أركايو صور كيس دي متقنا أهلا وأكيد حلا متقنا فوتيا شيء وسوق لنا إن شاء الله بريسان قدينا شمبرار ما يناسينا فهمتين وحادينا ميل أو شمبرار بدن إيجوان waxaa jooga Atanis oo meel walba Arab ay sameysatay ama Arab ay lahaatay mootooyin ay wataan ganacsiga wax walba Arab la wadagtay Syrian Kurdi Syrian Turki wax walba meel walba Arab sameysatay baabuurtii iyo meel walba guriyaashana u jeedin iyo geedaha qofkii Turkish oo Greek soo maray kulay fahmi kara Soomaaliya hadda ku yar tahay lacagihii waa la wada gooyay dad fara badan ama muqallasiintii iyo dadkii xawaaladaha han jiray lacagii way la wada gooyeen السلام عليكم هذا عربة متقنا ماله بالهاتي مركا جوار عربة أركي مكحاتي أنا ماشي متقنا كنيسة من كواح أتجو يا عنواي وضد فربضن هو أي قانين كنيسة يو إيش بعده إقدم بيساني إيش بعده كم مانين سأوجدين واتنا معناها كنيسة واتنا قفكي يا خانا يا خانو وحاجونا كنيسة أنت كأدي كنيسة wax kala ma kaniisada waxa uu maanay dad far badan oo Soomaaliya yaqaanin kaniisada oo meeshan waa loo iimaan jiray waa la iska baashar jiray dadkii isbalansanaa shukaansanaa oo guriga cariir ku noqday meelaha ku sheekaysan jiray habeenkii waqti dambe okay hadda waxa gacanta ku wada bacdan qoolida raba in loo daadiyo meel oo la isku yimaadana way ahayd marka qooleedana waa quudinayna maanta Soomaali istaag markii laga soo baxo waxa la iimaan jiray meel oo mataqaanin oo Greegan lahaa oo dhigi jiray Baniote meesha habeenkii mataqaana konsertiyada iyo mataqaana xafladaha ee gaalada ku qabsan jiray ku dhaansiin jiray waa kaasa meesha gamekii ciyaarkii ku dhili jireen waa kuwana cafeteria Baniote waa kaasa qofkii yaqaan hadda agmaraya oo marka agmaraya inuu ku aadinaya kulli fahmi ka tin gacanteeda oo mataqaana bidixda laba nin mataqaana hor fadhiso hadda ebel wala buuxi jiray waa kana ciyaaraha ku fiisan jirnay dad fara badan mataqaana kafeega waxyaabo mataqaana ay ka cabi jireen waxa kale oo jiro macnaha meel oo Soomaalida ay ku macnaha ay ku sameeysan jireen dharkii wax ay ku dhaqan jireen aa jirto oo horidaas ah iyo maqaayada kale guri aan adegnaa jiray meeshan loo mari jiray gurigii ugu horeeyay soo adeego ahaa gurigii kale tan wuxuu ku yaalaa horteed markii la aado gacanta bidix loo aadaya عطوش بابا عطوش أنا سيدو كذا تصير حاول دقنا نقول نعس ودقنا مقالة نويس وبدأ شيء عربة ما تقنا ماله بكريسة رأي لو حولبو نقولياش سي ويجي ودريم كرتين فاهم ساسي وجبيهين يا مركا حقيقة أنا ماشي ما تقنا إيش يقول مركا سومالي يكون خنجر مكي معضان مقاعد كانت حق لوريجي وضدك ما تقنا أي وظيفة لسان سومالي عيارها يكون في سان ماشي سوجتك اوكي ماشي waxa soo dhaw hadda oo maxaladaha ay sheeg oo lagu dhaqdo dharka iyo meesha dharka lagu tolan jiray waa kana meeshii oo mataqaana dharka lagu dhaqan jiray kuwana Soomaalida ay ka soo jireen soo jeedin wax qasaalad meeshii yaalo oo jeedin oo bustayaasha iyo dharka yaal geesan jiray marka sheekadeeni safarkeena oo sii soconaa hadda waxa tagaynaa boosajada markii la aada jafta caasimada la Tanoniik la aadi jiray qareenka meesha ka raaci jirnay iyo barxadii boon lagu dheeli jiray